gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland Cabdirashiid Riyaraac oo maanta qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ku dhawaaqay in 13 bishan ay ka bilaabmayso qaadashada kaarka codbixintu gobolada kala ah Sool, Sanaag iyo sidoo kale Saaxil waxaanu shacabweynaha reer Soomaaliland ugu baaqay inay kaarka qaataan. sidoo kale gudoomiyaha komishanka qaranka Soomaaliland ayaa waxa uu fariin u diray dhammaan howlwadanada komishanka doorashooyinka ee ka howlgali doona gobolada dalka oo ugu baaqay in waajibaadkaasi iyo shaqadaasi ay uga soo baxaan si xilkasnimo leh. sidoo kale gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ayaa waxa uu fariin u diray ciidamada qaranka iyo sidoo kale madax dhaqameedka oo iyaguna ugu baaqay in ay howlwadanadaasi kala shaqeeyaan howlaha waajibaadka ee saaran. gudoomiyaha komishanka doorashooyinka oo arrimahaasi ka hadlay hadaladiisii waxaa ka mid ahaa sida ay bulshadu ka warhayso waxaa bilaabmaya bisha 3aad 11keeda kaar qaybintii aynu diiwaangelinta dadkii loo soo sameeyay diiwaangelinta ayaa kaararkoodii la qaybin doonaa. waxaan marka shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaynaa inay ka bilaabmi doonto bisha 11keeda saddexda gobol ee Esta ka kaca oo ah Saaxil, Sool iyo Sanaag. saddexda gobol ee Togdheer, Maroodijeex iyo Awdal waxay insha Allah ku xigi doonaan iyagana waqtigooda dubaanu ka soo sheegi doonaa marka goboladaas iyo hawshaas ay soo gabagabowdo. halkan waxaan doonayaa inaan saaka la wadaago guud ahaan in kaar qaybintii dalka ka bilaabmayso saddexda gobol ee Saaxil iyo Sool iyo Sanaagna ugu horeyn doonaan. waxaan halka kala dardaarmayaa dhalinyarada firfircoon ee runtii mutacalimiinta ah ee aqoonta iyo kartidaba leh ee muddadii komishanku uu hawshan ku soo jiray la soo shaqaynayay. waxaan saaka kula dardaarmayaa wixii aynu ka soo shaqaynaynay 3 bilood iyo muddada ka badan midhaheedii ayaa maanta u qalab qaadanaysaan, kaararkii baa bixinaysaan. waxa aan filayaa dee shuruucdana waa ka dheregsantihiin oo sharci baa ka yaala qof walba in kaarkiisa isaga oo keliya la siiyo. waxaan idin xusuusinayaa dee dalkiinnii iyo dadkiinnii baa u shaqaynaysaan, dhallinyaraad tihiin, dhaar baa laydin mariyey, komishanka iyo qaranka iyo dhammaan idinkaa laydin aaminay, laydin dul saaran yahay. hantidii qaranka ugu muhiimsanayd weeye ay waxaa gacanta ku haysaan. waxaanu aad iyo aad idinka codsanaynaa, idinku dardaaraynaa in sida sharcigu yahay ee laydinku tababaray ee wax laydiin baray aydan waxba ka bedelin, sidaa dadka ugu shaqaysaan. qodobka labaad waxaan iyagana dardaarayaa ciidamada qaranka qayb kastoo ay yihiin. waxaa maanta sida la ogayay ka qaybgelaya ciidan 2500 oo askari iyo saraakiishiisa ah. waxa laydin xil saaray waa 2 xaaladood. mid waxa weeyaan in amniga guud ilaalisaan iyo xasiloonida oo markii horeba hawshiina iyo shaqadiinu ahayd. marka labaadna waxa weeye in dhalinyarada iyo agabka ay sidaan iyo hantida qaranka iyadana ilaalisaan. meel kasta oo aad joogtaan aad la socotaan oo hawshaas runtii waxaynu doonaynaa in si sharciga waafaqsan ay u dhacdo. qofka kaarkiisa isagaa la siinayaa, inaan cidna kaar loo dhiibin, cid kalena aanay odhan cid baan kaar u qaadaya. ciidankana mas-uuliyaddaas waa saaran tahay. qodobka saddexaad waxaan halkan dardaaran uga dirayaa komishanka gobolada iyo degmooyinka xubnaha u jooga. waxaan leeyahay mas-uuliyaddu marba waa meel. maanta way idinku soo wareegtay gacantiina, dhalinyaradii, kaararkii, ciidankii dhammaan idinku soo wareegay. waxaan idinkana idinka codsanaynaa si mas-uuliyad leh oo karti leh oo karaamo leh inaad hawshaa u qabataan, sharcigana waafajisaan. waynu wada garanaynaa, waynu ku tababaranay, waynu naqaanaa, waa laydiin qaybiyey. qof walba waxaa laga doonayaa inuu axdigii iyo dhaartii oofiyo, shaqadu siday ahaydna u qabto. waxaan kaloo iyagana dardaaran u dirayaa waayeelka iyo waxgaradka Jamhuuriyadda Soomaaliland siiba 3 gobol ay hadda ka bilaabmayso. waxaan leeyahay wanaagga dalkeenna iyo dadkeennu wuxuu ku jiraa in sharciga loo hoggaansamo, in sharciga la ilaaliyo, in ma garanaysaa sida ay
sax ah wax walba loo qabto waxaad maanta jeceshahay berri bay kula xumaanayaan marka waxaan leenahay inamada yaan culays la saarin dadka culayska saaraya inaad ka ilaalisaan inaad la shaqaysaan inaad soo dhoweysaan in kaadharhka qaab sharciya lagu qaato ayaanu runtii waayeelka iyo waxgaradka meeluu joogaba ka codsanaynaa waxaa kale oo aan waayeelka iyo dhammaanba u sheegaya saddexdaa gobol walba waxaa joogi doona 2 komishaneer oo 7 xubnood ee komishanka guud ka mid ah 2 xubnood bay ku xeroonayaan wax kastoo cabatina iyo wax kastoo ciladoo soo korodha iyo wixii ma garanaysaa aa u baahan tihiin markaa 2 komishaneer gobolkay fadhiyi doonaan iyaga ayaa kala xidhiidhaysaan gobol walba wixii hawla ee aa u baahataan haddaa waayeelka iyo waxgaradka tihiin intaa waxaan raacinayaa runtii waa mahadnaq waxaan u mahadnaqaynaa xukuumadda somalilan waxaan u mahadnaqaynaa xusbiyada waxaan u mahadnaqaynaa ciidamada qaranka waxaan u mahadnaqaynaa dhalinyarada hawsha gacanta ku haysa waxaan u mahadnaqaynaa shacabka guud ahaan waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan cid kasta oo nagala qayb qaadatay hawshaa waxaan mahadnaqii runtii iyagana ku darayaan la ilaawi karin donoriska ama beesha caalamka ina la shaqaysa oo iyaguna waxa weeyaan dhaqaale iyo aqoon iyo ma garanaysaa dhiirigelinba wax badan inala soo qabtay oo somalilan intii ay dimuqraadiyadda qaadatay doorashada gelaysaba garab taagnaa maantana garab taagan iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo ay khusayso shaqada commissionku iyo cid kasta oo gacan ka geysatay iyo cid kasta oo caloosha iyo qalbiga ka jecelba mahadnaq buuxa baan u diraynaa gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland Cabdirashiid Riyaar ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay dib ka soo sheegi doonaan waqtiga ay ka bilaabmayso gobolada Togdheer Maroodi Jeex iyo sidoo kale Awdal qaadashada kaarka codbixinta waa Boqor Axmed Cabdi 5 Somali TV Hargeysa.